maayarka degmada Boocame Faarax Cali Maxamed oo maanta ka qayb galayay munaasabad lagu soo bandhigayay xuska 18 May ayaa hambaliyo u diray shacabweynaha Soomaaliland. Munaasabad ay ku soo bandhigayeen xuska 18 May ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin isla markaana halkan aad arkaysaan waa 18 May aanu kaga qayb galayno hadaan nahay degmada Boocame gobolka Sool degmada Laascaanood ka degma ahaan waxaan kaga qayb qaadanaynaa gobolka hadaan nahay ururadii dhalinyarada ururadii haweenka anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha degmada Boocame oo aanu hambalyeynayno 18 May aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa maalin xaqiiqatan maalinteedu ay tahay maalin aanu aad iyo aad u xusayno maalinta 18 May gaar ahaan degmada Boocame ee gobolka Sool aad iyo aad ayaanu mahadnaqaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waftiga uu hogaaminayo wasiirka biyaha wasiirka beeraha oo nagala soo qayb qaatay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa iyagana dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay maalintan xuskeedu ay tahay 18 May annagoo ah ururada dhalinyarada ee degmada Boocame waxaan ka qayb galaynaa maalinka xuska 18 May annagoo ku faraxsan inaan kala qayb galno gobolka Sool annagoo degmadii Boocame annagoo dhalinyaradeenni iyo haweenkeenni iyo ururadii iyo wixii oo dhan idil maayarkeenina nala socdo waa hambalyeena gobolka Sool Nol Ismaaciil Haradiga Ariel TV Laascaanood.